agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco Maxamed Axmed Carabayta uu heliyo Maxamuud Cabdilaahi Waxaro ayaa maanta ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Burco gaar ahaan wadada hormarta dugsiga hoose dhexe Sheekh Yuusuf Alkawneyn. Dhaawaca agaasimaha guud ayaa waxa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Burco. Qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay fiican tahay xaaladda caafimaad ee agaasimaha iyo Maxamed Cabdilaahi Waxaro. haddii aan agaasimaha ka warramo xaaladdiisu aad iyo aad u fiican tahay. imika iskaankii waan soo saarnay iskaankii wuxuu sheegay inaanay wax fracture wax jabitaan in jirin xaaladdiisu aad iyo aad u fiican tahay uu miyir qabaa uu hadlaya aad buu fiican yahay xaaladdiisa kale conditionka xaaladdiisa kale u fiican tahay haday fitar sayniskiisa BB-ga macaankiisa xuski aad buu fiican tahay wuxuu ka cabalaya hadda imika inta qoortaas ilaa inta halka feedhana uu ka cabalaya. Shilalka gaadiidka ayaa muddooyinkii dambe ahaa qaar ku soo badanayay gudaha magaalada Burco balse ilaa hadda ma jirto cid ka hadashay khasaaraha ay geystaan gaadiidku. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto TV-ga caalamiga Royal magaalada Burco.